shirka golaha xukuumadda dowladda Puntland oo shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa toddobaadkan looga hadlay amniga dalka waxqabadka boqolka maalmood ee xukuumadda xaaladda abaarta warbixinta guddiga maareynta arrimaha ku sugaya warbixino kale markii kulanku soo dhamaaday wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta ee dalxiiska Puntland mudane Cali Xasan Axmed Sabare ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii looga hadlay shirka maanta bisha waa 24 bisha Abriil 2019 waxaa madaxtooyada dowladda Puntland ku qabsoomay shirkii khamiistaha caadiga ahaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cismaan Axmed Karaash waxaa ka soo qayb galay dhammaan xukuumadda inteeda badan waxaa lagu gurfeeyay sida caadiga ahayd waxaa lagu kala qaatay wiiga wixii la soo maray xaaladda wadanka حاجة نبتجلية ده ودك ونبتجليه وأنا لسه ورستي حالة عملية وحاكم الله هذلي ديار جروجا بقول كم الماض لما عادي حكومة جاي شفتي وهو جابي مدحوين سعيد عبد الله الدني يا أحمد كراش وحال لسه قرتي من لو ديار جروجا إلا أنت كذا ما نسوي رمضان كبعدنا مركز على قبض شركي بقول كم الماض ay xukuumadda jirtay waxa kale oo laga wada hadlay xaaladda abaaraha waa la iska wareystay warbixin waa laga bixiyay guddiga qaabilsan abaaraha uu hogaamiyay madaxweyne ku-xigeenku xaaladda abaaraha warkii ay ka bixiyeen wuxuu ahaa meelaha dhulka qaarkood waxa ka dhacay roobab badnayn insha Allah wa raxmadka Ilaahay hayna siiyo iyo in la dardargeliyo abaaraha iyo maxay haytay taakuleeytooda hay'adaha waddanka ka shaqeeyaan si aad loogu bogaadiyo maxay haytay ay xaaladdu ay faraha uga bixin waxa kale oo laga wada hadlay maxay haytay xaalad ka soo cusbanaatay taleex degmada taleex oo shuban uu ka dhacay wasaaradda caafimaadku si degdeg ah uga hawl gashay laba tiim bay u degtay maanta warbixinta ay ka bixiyeenna xaaladda gacanta ayaa lagu hayaa dadka intoodii badnaydna waa ladan yihiin ilaa meel 8 qof iyo 10 qof iyo meel 9 qof ayaa weli la sheegay inay xaaladaas ku jirto waxa loo geeyay waxyaalo xalaal wixii ay u baahnaayeen ku saabsan arintaas waxa kale oo laga hadlay shirkii isgaarsiinta boostada iyo tiknoolajiyada ee xamar oo aniga wasaaradda xuseeyay ma sha Allah taana waxa ka soo kordhay boostadii Soomaaliya inaan xubin ka noqonay ururka boostada adduunka haddana aynu xubin ka nahay dhaqsana u bilaabi doono Soomaaliya inay boostana loo soo diro iyana ay wax dirto in hay'adina loo soo diro waxa la sugayaa kaliya inta sharciga laga soo hay'adda asaaska sharciga boostada isgaarsiinta iyo in hantidii waddanku lahaa ee boostada dib loo tiro koobo iyo sidii maxay hay'adda loo hawlgelin lahaa arrimahaas iyo waxa kale oo laga hadlay tala soo jeedin barnaamijka dib u habeynta hay'adaha dawladda oo ay qabatay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha iyo dhalinyarada arintaas wali waxa arinta gacanta ku haya wasaaradda waxay u soo gudbinaysaa madaxtooyada iyo maxay hay'adooy cid la shaqeysa arinta in dib loogu soo sidii go'aan loo gaari lahaa wasalaam xamse kaafi axmed wararka telefishinka caalamiga ee GBC